Afhayeenka Madaxtooyada Somaliland Maxamed Wasame Jaamac ayaa deegaanka Bixindhalaax oo dhaca dhinaca galbeed degmada Cergaabo ka dhagax dhigay dugsi hoose dhexe bulshada deegaankaasi baahi weyn u qabeen. Dugsigan ayaa kamid ahaa baahiyaha deegaankani ka jiray oo hore bulshada deegaankani ugu gudbiyeen Afhayeenka Madaxtooyada Somaliland oo kormeer ku soo maray Bixindhalaax iyo deegaanada hoos yimaada waxaana si rasmi ah dugsigani isla maantaba u bilowday shirkadda Soft Construction Company oo kamid ah shirkadaha ugu caansan geeyiga Somaliland. Dhagax dhigga dugsiga oo goobjoog ahaayeen gudoomiye ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag Ibrahim Ducaale, madaxa kormeerka ee wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag Axmed Ciise Cabdi, isuduwaha wasaaradda hawlaha guud iyo guryeynta, madax dhaqameed iyo waliba odayaasha deegaanka Bixindhalaax iyo deegaanada hoos yimaada. Waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay odayaasha iyo waxgaradka Bixindhalaax iyagoona uga mahadceliyay afhayeenka iyo xukuumadda Somaliland dhismaha dugsigani ka horeeya oo halkan nagala qayb galay baahiyaadka ka jira ayuu halkan ugu koor galay. maantana waxaan ku hadlay afka magaalada Bixindhalaaxeed aad iyo aad baan soo dhaweynaa ayaan leeyahay halkan iskuulkan baahida loo qabay dadweynaha waa idin aragtaan u hogaanaya waxa intii la dhagax dhigay ilaa 3 cashaad ay joogeen waa sababay baahida loo qabo iskuulkan halkan tiili oo la dhagax dhigo halka kan Ilaahay maanta u gartay waxaan leenahay baahida reer Bixin markaan gaar isagana ku leexiyo iskuulku ma doono macna in halkaas quruxo hadii iskuul la dhiso waxaanu insha Allah Ilaahay waxaanu ka baray ku horta in ay ka faa'iideysta in badan Somaliland dad midale uga soo saara baan aad iyo aad uga rajaynaynaa. halkan waxa weeyaan goobta Bixin la yiraahdo oo maanta loo dhagax dhigayo iskuulkii oo in badan u soo socday oo ay joogaan xogayadan afhayeenkii dawladda iyo wasaaradda waxbarashada gudoomiyaheedii iyo madax kale oo la socota waliba mahad baanu halka u naqaynaa mahad Ilaahay baale yana waa badan yihiin waxa weeye hawsha ayaa maanta loo yimi meesha ardaydan in badan bay ku dhiganaysay hadii beedankeeda leeyahay markii hore meel waxaan salaamayaa afhayeenka madaxweynaha Somaliland Maxamed Wasame Jaamac halkan oo iskuul iyo waftiga balaaran la socda halkan oo iskuul maanta nolol bilaabi doono in badan rafaad soo maray oo geed hoosta ugu soo dhiganay maanta la isugu yimi iskuulka Bixindhalaaxood oo la dhagax dhigayo oo waxaan afhayeenka iyo wasaaradda iyo waxaan kasta oo danayana aad iyo aad baan u soo dhaweynaa mahadna aan u naqaynaa Ilaahay baa mahad baan u naqaynaa iskuulkana waa ka mahadcelinaynaa Ilaahay baa mahad leh aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa waxaan leenahay soo dhawaada baan leenahay baahida loo qabayna baahi balaaran baa loo qabay oo weyn maanta marka hadda nasiibkeedu noqotay in halka kan Bixindhalaaxeed iskuul loo dhagax dhigo aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa waxaan leenahay soo dhawaada aad iyo aad baan u soo wadaagay afhayeenka iyo gufta la socotaba. geesta kale waxa munaasabada dugsigan lagu dhagax dhigay ka hadlay mas'uuliyiintii dhagax dhigga ku wehelinayay afhayeenka Madaxtooyada Somaliland. Jamhuuriyadda Somaliland waa ugu mahadnaqaynaayo maanta waxa weeyaan dhismaha leena soo gaarsiiyay hore inoo ma soo gaari jirinin hore haddaynan been iskula wareegaynin hore inoo ma soo gaari jirinin udubeynu muddo dheer u sacabtumayna deegaan ahaan maanta marka waxa weeyaan cid wax ku qabanaysa wax ku darso axood waan garanayo faraxyadeeda iyo faruuraheeda aanu xoolaa ku raaci jiray in maanta iskuul loo dhisay iskuulka waxaynu ugu horeyn uga mahadcelinaynaa wasaaradda waxbarashada waxaan soo kale uga mahadcelinaynaa afhayeenka madaxweynaha oo dhowr jeer halkan yimi kuna guuleystay inuu maanta qaato darajada ah in iskuulkii Dhalax la dhagax dhigo waynu salaan kadib maanta farxad bay noo tahay in reer Bixin ahaan ay maanta helaan iskuul waxbarasho oo ay ubadkooda uga faa'iideeyaan runtii ma hadda koobaad waxa iska leh afhayeenka halkan ka soo shaqeeyay hawshan sidoo kale waxa mahad iska leh wasiirka wasaaradda waxbarashada agaasimaha guud oo hawshan xil weyn iska saaray arintani waa arin runtii laga maalgelinayo khasnada iskuulka muddo badan culayska waxa wasaaradda waxbarashada ku saaray afhayeenka Madaxtooyada Jamhuuriyadda Somaliland Maxamed Wasame Jaamac oo iminkay nala jooga hawsha ugu weyna isaga ayaa iska lahaa sidoo kale waxaynu u mahadcelinaynaa wasiirka wasaaradda waxbarashada wasiir ku xigeenka iyo agaasimaha guud oo ka soo jawaabay
baahidii halkan taallay iyo guud ahaanba gobolka Sanaag aad uga jawaabay halkan waxa jooga maalintii aan hore aanu nimana ballanqaad baanu sameynay ubadka yaryar ee halkaa taagan waan ku jiroodhoonay maalintii aanu nimid ee aan iskuul haysanin afhayeenkuna uu ka hawlgalay wasaaradda waxbarashadana way ka hawlgashay ilaahay xamdii waa lagu ku soo guuleystay inuu iskuulkii uu keeno idinka maxaa looga baahan yahay maadaama iskuulkii la keenay wasaaradda waxbarashadana ay idinla garab joogto macallimiintiina waa laydin qorayaa iskuulkiina waa laydin dhisayaa sidaa niyadda ku samaada qofka idin shaqeeya wax loo qabtaa qofka idin shaqeeya wasaaradda waxbarashada dhankiisa isna waxaa halkaasi ka hadlay Fahad Boqor Faysal oo ku hadlayay afka shirkadda fulinaysa dhismaha dugsiga waxaan u ballan qaadayaa dhammaan xubnaha dawladda ka socda dawladda sare dawladda dhexe dawladda goboleed dhammaan inaanu dhisi doono dhisme aad u tayo wanaagsan insha Allah ilaahayna inuu nala qabto ayaanu ka rajaynaynaa waxaan ka codsanayaa dadweynaha ku dhaqan bixin dhalax inay inta aanu dhismaha wadno si weyn noola shaqeeyaan oo noola hurgalaan gabagabadiina waxaa munaasabada ka hadlay Afhayeenka Madaxtooyada Somaliland Maxamuud Warsame Jaamac isagoona bulshada deegaanka Bixindhalaax ugu baaqay inay ilaashadaan dugsigani ay bini aadanku inay ka wada shaqeeyaan ama iska kaashadaan waxa kamid ah waxbarashada noloshu waxbarashadu waxa weeyaan iftiinka nolosha cidda aan waxbarasho haysanin ama cidda aan waxbarasho yeelinin ama cidda aan waxbarasho raadinaynin mugdi bay ku jirtaa arintan Bixindhalaax 30 sano Somaliland jirtayba way jirtay deegaan la degan yahay bay ahayd deegaan dad badan joogaan bay ahayd waxa makhraati ka ardayda faraha badan ee halkan joogta ee bacadka geedka hoostiisa joogtay intaas oo dhan way joogeen qadarta Ilaahay ay